السلام عليكم. وليغا ما aragtay qof aad jecleed oo kaaga tagaya waxaan mudnaan inuu kaaga tago mise ma ku fikirtay inaad weydiiso sababtuu kaaga tagaya ama sababtay kaaga tagaysa ma ku dhahday ama ma ku dhahay maya waan ka xumahay iga raali noqo walaashaydii ama walaalkaygiyo waan ogahay waqti xaadirkaas waxaad dareemaysaa walwal walbahaar ilin joogta ah laakiin waxaan ku leeyahay ha murugoonin sababtoo ah dhibaatadaada si walba ay u weyn tahay waxaad haysataa alle weyn oo kaa saaraya dhibaatadaas gacmaha u taago oo isaga u dhawaaq ma jirto awood ka saraysa ducada sababtoo ah waxaad xariir la samaynaysaa midka adduunka iyo cirka iska leh midka u bedeli kara dhibaatooyinkaaga oo dhan xal xanuunadaada oo dhan caafimaad ilintaada oo dhan dhoola cadayn riyooyinkaaga oo dhan suurtagal haddii aad dareentid murug cabsi walwal iyo walbahaar oo aad weydi waddo aad murugtaas uga baahdid waxaad dhahdaa yaa allah sababtoo ah waxaad haysataa alle weyne xasuusnow mar waliba mid kalena ogow walaalkaygii ama walaashaydii qofkii maanta ku xumeeyay wuu soo laabanayaa kan duruufaha kugu nacay wuu soo laabanayaa kan ku dhaawacay wuu soo laabanayaa laakiin ma ogtahay goorta ay soo laabanayaan waxay soo laabanayaan markaad joojiso ka fikirkooda waxay soo laabanayaan markay ku arkaan adigoo faraxsan la'aantooda marka waxaan ku leeyahay walaashaydii ama walaalkaygiyo murugta sidaydaba kuma fiicna laakiin waxa kuu fiican mar waliba inaad dhoola cadayso ogowna qofkaas markuu kuu soo laabto wuxuu ku dhahayaa iga raali noqo qalad ayaan kaa galay ku dheh kaliya iga raali noqo waan ka xumahay fursad kale kuma siin karo intaasi ayaa ku filan sababtoo ah fursad kale haddii aad siisid wuxuu mar kale jaanis u helayaa si uu noloshaada u baabi'iyo sababtoo ah mar hore ayuu ku dhaawacay markaana haddii uu u talagalay inuu ku dhaawaco kuma daahay walaashaydii ama walaalkaygiyo qofkaasna iska ilow والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.